وصحبه أجمعين ما أنت هالكن وحين السجون إنه كهذا الله حركة نقول لك عايز سما فله ورجع عبد الملك موسى علدان أو يمكن مدة دوري طبعا عشاء كحران مجال هالقيسة وولي ما شرعي لسوي تاجين كنت لما ورن كرة عبد الملك شرع درو كحران جاي عبد الملك وقرتي دم بيجي سلا شيء إنه قري بس حمر إن تجا حران معها أو حمر دولتي كرا ودرجة كينا أو واللودو فكرة أو وطن دول على نهاي بس واحد حرانة إن التفيرو شريتان كقرن كشمريد سومالي لان تاسنا عبد الملك موسمين مدحينها سومالي لان بدنا أحمد محمود وحن كعصنينا حلنا يمدن مدح ملة تابتو كسريسا مجرتو وحن كعصنينا إن الحرية دي سي وسي لسان عبد الملك موسى علدان oo hadii uu dambi galayna maxkamadda la geeyo sharciga lagu qaado hadii aanu dambi galina la iska soo daayo Cabdi Malik Muuse Caldoon wuxuu ahaa samafale dadka u shaqeeya oo dad badan oo dan yara oo tabaaleysan oo hooy iyo toona aan haysan ayuu Cabdi Malik qoodin jiray oo ahaa ila ay qootaan buu ahaa waxaan oran karaa runtii Cabdi Malik wuxuu ahaa shakhsi horumar ku suntan oo gobolka Togdheer iyo guud ahaan dhulka Soomaaliya ay tagto magac iyo maamuus ba kale عبد الملك هدي ودم بقلي حاولنا إن هولي سما فلكها يوسف من شري ضدك تبارسن هنلقوا عفيه هنلقوا سودايو عبد الملك والله ذكرنا يا كانوا تكشري يمد الصومال لا يمد الصوماليات با مو هين حمر وقرا ما يمك وقرا متجين دور جار أو هراء يحمر تجي برستني واحد ولو صبين يا إن مركي وفكقب قال مدحتني ودي فرماتشو إن لقوا حري صاد لقوا قبل شيء شخص جو وكقب قل كرا ودي كم بحين قديد السماء لأنه ودنا نشارن هودي عد مالك وتري كرا عد مالك نمو ضفرين شريتان السماء لأن مالنا كم رن منا هينو هذا الأولي متكلم قدرة يا وحن قدرة يا قدوميها أورك صحفيين السماء لأن صالحة محمود عبد الشامح حوتو وحى وهبين كي لحري عد مالك وهاللي waxa uu warbaahinta ka yiri hadallo curfiya oo runtii Cabdi Malik lidii ku ahaa xaq wuxuu lahaa inuu dhexdhexaadiyo suxufiyiinta Somaliland imuu hayn inuu dhinaca garabka saaro oo yiraahdo la soo xidho wixii isaga iyo wixii kale tagay waxmar midda kuma saxnayn soolja hogaankeedu waxa uu leenahay ilaahay mid dhaama sooljaha ugu bedelo xuuto inkastoo waqtigiisiiba uu gabagabay yahay xukuumadana waxaan u baaqaynaa in Cabdi Malik duu dambi galay dambiga lagu qaado hadii aanu dambi galina la soo daayo oo dadkii uu samafal jiray ee dan yartaha aan laga xidhin ee loo soo daayo intaas aan kaga baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.